بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أرضي مالين كلو ونكسن رمضان كريم وحين قادنا مادتني سيدة شوكتدا هيدي نوجو سعوتي لأورنا ICT أما Information Communication Technology فصل كسيدات بواحد نصوت شيء ذنا مانتا chapter كيني اللبعض وإنه كتيرنا مع المهمة ليسن كيس الصدحات chapter كان واحد نوجو هذا الله معوان كيسوها Introduction to Computer أما what is a computer waxaynu warbixin ka soo bixinaynay computerka iyo waxa uu yahay marka lesson-kii saddexaad baynu qaadanaa labadii lesson hore waxaynu soo qaadanay introduction-kii in chapter-kan oo aynu ku soo sheegnay computerka iyo waxyaalaha waxa la yiraahdo lesson-kii labaadna sidoo kale waxaynu soo qaadanay sidoo kale usage of ICT meelaha iyo areas-ka inta badan loo isticmaalo inagoo components-ka computer ka sheekeynay oo lahayn waxyaalaha computer ku kooban yahay aynu soo sheegnay marka lesson-ka saddexaad maanta waxaynu ku arki doonaa waxa la yiraahdo characteristics of computer ama features of computer noocyada computerka iyo calaamadaha uu leeyahay waxyaalaha lagu garan karo maadaama shay kasta uu leeyahay wax lagu garto marka characteristics of computer ama features of computer markaynu qaadano ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa ama se laga rabaa inuu sheegi karo the characteristics of computer have ama the features of computer have calaamadaha computeradu inta badan ay leeyihiin pointiga labaadna waxa uu yahay waxa la yiraahdo motherboard markaynu calaamadaha soo dhameeyno ardaygu wuxuu sheegi karaa uu awood u yeelan doonaa inuu sheego waxa la yiraahdo motherboard marka intaasi waa labada point ee aynu kaga hadli doono marka cashirkeena haddii aynu bilowno meesha ugu horeyso waxa ku qoran the characteristics of computer ama the features of computer calaamado nooceeya way computeradu leeyihiin ama se lagu garanaya calaamadahaasi inta badan waxay uga duwan yihiin ama waxay ku kala duwan yihiin different computerada kala duwan ee adduunyada yaala ee shalay ka soo hadalnay types of computers afarta inuu soo qaybin mid kasta waxa uu leeyahay marka calaamado inta badan iyaga computeradu ay ka sameeyeen dhamaan calaamadahaas waxaan leenahay the characteristics of computer that have made them so powerful calaamadaha computerada inta badan ka dhiga awood u yeela ama inta badan adduunyadu ay keena in computerka la isticmaalo baa waxaan u horeysiinay xabada koowaad waxa la yiraahdo speed waxa la yiraahdo speed kaasi waa awoodda shaygu ku shaqeynayo xaddi intee leeg calaamado waxa kamid ah computeradu waxay leeyihiin speed macnaha waxa ku shaqeeyaan awood bay ku shaqeeyaan xawaare ku shaqeeyaan pointiga labaad waxa uu yahay computerada calaamadooda waxa kamid ah waxay leeyihiin storages waxbay kaydiyaan maxay kaydiyaan macnaha informationada iyo inta badan daatada computerka lagu shubanayo meesha lagu kaydinayo ama daatada computerka lagu shubto bay inta badan kaydiya marka calaamadooda mid labaad waxa kamid ah waxa la yiraahdo storage ta saddexaad waxaynu soo qaadanaa oo inuu leenahay accuracy waxa leenahay computeradu waxa leeyihiin waxa la yiraahdo accuracy waa honest macnaha thirdness ma laha oo inta badan computerku sida qofka bini aadanka ah ma laha waqti uu ku shaqeeyo saacad ma laha waxa laga qofka bini aadanka saacado xiriir hadduu shaqeeyo wuxuu dareemayaa marka thirdness daal buu dareemayaa sidoo kale computeradu marka calaamadaha waxa kamid ah kuwa daala ma aha haddii computerkaagu uu caafimaad qabo shaqeynayo waa kuwa marka shaqeynaya sidoo kale midda afaraad waxaynu leenahay waxa la yiraahdaa diligence computersku are honest waa daacad marka leenahay waa daacad computerada calaamadooda waxa kamid ah markasta wax kasto computerkaasi ama information kasto computerka ku save kareysato waxa laga yaabaa number of years after dhowr sano kadib ama sanado badan kadib in computerkii informationkii warbixinta aad dhigatay aad heli karto iyadoo sideedii laakiin waxa laga yaabaa qof bini aadan haddii aad wax u sheegto laba maalmood kadib aad weydiiso waxa laga yaabaa wixii isagoo kuu sheegaya haddana statementka aad u sheegtay inuu bedelo macnaha wixii wax ka duwan inuu kuu sheego ama sidii aad statementka u dhigtay inuu dhig waayo marka computerada markasta wixii lagu save kareysto baa laga helaa pointiga shanaad ee u dambeeya inkastoo intaasi ka badan yihiin haddana intaas ku soo ururinaa pointiga shanaad waxa weeyaan calaamadooda waxa kamid ah power of remembering waxay leeyihiin awood waxay ku xasuusan karaan computer oo marka loo leeyahay awood wax ku xasuusan karaan waxa kamid ah computeradu inta badan waxay leeyihiin waxa la yiraahdo power of remembering oo waxa laga yaabaa wixii aad ku shubato haddii computerkaagu caafimaad qabo aanu xanuunsanayn ama aanu xumaanin waxa laga yaabaa in number of years before after sanado badan kadib aad heli karto marka
pointiga calaamadaha ama featureska computeradu leeyihiin midka u dambeeya waxaan leenahay waxa la yiraahdaa power of remembering awood wax xasuusibay sidoo kale leeyahay marka intaasi waa calaamadaha goonida ee computerka ka dhigaya computerka inuu noqon karo mid powerful oo shaqeynaya pointiga ugu horeeya hadii noo soo horreysina ama xabada ugu horeysa waxa ku qoran speed waxa la yiraahdaa xawaaraha computerku xawaaro ku shaqeeya marka xawaaraha markaynu ka hadlayno waxa leenahay according to the speed of the computer markaynu ka hadlayno xawaaraha computeradu inta badan waxay leedahay speed of computer is capable of performing about 3 or 4 million simple instruction per second waxa laga yaabaa sakana gudahood in intaas oo instruction ama intaas oo information ama intaas oo warbixinood lagu daabici karo oo types of computers markaynu soo sheegnay shalay toole faster waxaynu ku koobaad ka soo dhignay computerkii ugu fiicnaa ama ugu horeeyay waxa ahaa kuwa la yiraahdo super computer kuwaas marka waxay awood u leeyihiin inuu computerkii sameyn karo midnadheer gudahood inuu intaas oo information ku save gareyn karo intaas oo information uu ku daabici karo daadis waabaynu leenahay marka computeradu waxay ku shaqeeyaan speed aan caadi ahayn sidoo kale iyagoo sameynaya 3 million instruction per second in general no human being can compete to solve the complex calculation faster than the computer waxaan leenahay ma jiro qof sida bini aadanka ama qof bini aadana oo yeeli kara xalin kara mushkiladaha iyo inta badan calculationada loo isticmaalo inuu computer ku xaliyo oo sidoo xalin kara wax laga yaabo applicationka Excel-ka marka furato intaas oo data ah baa wax laga yaabaa ama intaas oo row ama intaas oo column ina within a second gudaheed isku geyso computerka isku ka geeyo marka computer calaamadiisa kood waxaanu ka dhignay speed markaynu speed ka hadlayna waxaan leenahay computerada waxay ku shaqeeyaan xawaare aan caadi ahayn marka loo eego dadka bini aadanka caadiga pointiga labaad waxaanu ku qoraynaa wax la yiraahdo storage waxay leeyihiin awood waxbay kaydiyaan oo say wax u kaydiyaan waxay leeyihiin meelo wax lagu kaydiyo marka computersku markaynu ka hadlayno storageska waxaan leenahay computers have the ability can store mass storage of data within appropriate formats computeradu waxay leeyihiin awood ay ku kaydiyaan daatooyin kala duwan storage of daatooyin kala duwan iyagoo sameynaya within appropriate formatkii ugu fiicnaa tusaale ahaan waxa laga yaabaa in warbixin ama information kuugu qorayo tusaale ahaan applicationska office-ka inta badan isticmaalno ee word processor-ka sidoo kale Excel-ki inaad xisaabo ku waxaysato PowerPoint-ki inaad wax ku soo jeedinayso oo information ku qorato waxaas oo dhan computerki waxa laga yaabaa inuu ku hayo sidoo kale maxaa raacaya waxa laga yaabaa computerski in sawirro iyo fiiriyo iyo cashir iyo buugaag inay kugu jirto marka waxaan leenahay waxa uu leeyahay awood ama awood wax ku kaydin karo computerku computers have the ability can store mass storage of data with appropriate format waxaan leenahay computersku waxay leeyihiin awood wax kaydsi iyagoo sameyn kara formatku appropriate format mid kasta meeshuu ku jiray ku ilaalin kara ama ku kaydin kara pointiga saddexaad waxa weeyaan accuracy computerska marka la leeyahay accuracy waa maxay inta badan since a computer is programmable or man-made computeradu iyagoo yihiin wax program oo instruction iyo program ku shaqeynaya sidaas ay tahayna yihiin man-made oo kuwa dad sameeya yihiin waxaan leenahay whatever input wax kasta oo computerka gelino we give it result within accurately wax kasta oo computerkaasi aan ku save kareyno ama aynu gelino waxa inooga soo baxa ama uu nasiyaa within the accuracy wixii ugu saxsanaa oo marka la wixii ugu saxsanaa tusaale ahaan waxaynu sameeynaa fariin baynu halkan ku qoranaa tusaale ahaan waxaan leenahay dugsigu ama iskuulku berito waa fasax eegada iskuulku berito waa fasax adaataan markaynu informationkaasi warbixintaasi ku qorno computerkii muxuu sameeynaya isla iyadoo sidaasiya baa waxa laga helayaa inaynu hadhow toole dugsigu beri waa fasax inta markaynu computerkeena ku qorno waxaanu sameeynaa waxa laga yaabaa number of year after sanada kadib ama hal sano ama laba sano ama bila kadib hadaad u baahato informationka inaad hesho waxa helaysaa informationka isagoo sidiisii laakiin waxa laga yaabaa hadii informationka aad qof u sheegto oo warbixinta qof u sheegto waxa suurtagal ah in qofkii atraad dugsiga ama iskoolka beritoole waa fasax laba cisho kadib ama saddex cisho kadib hadii aad weydiiso waxa laga yaabaa inuu ku dhaahdo macallinkii wuxuu yiri maamulihii wuxuu yiri waxaan maqlay waxba ku daray marka statementkii muxuu sameeynaya waxba ku daray marka in computerska ka hadlayno waxaan leenahay computersku waa the accuracy since the computer is programmed or man-made so whatever input we give its result within accurately waxaan leenahay markasta in information computer ku save kareyno waxaynu ka helaynaa wixii macnaha
aynu ku save garaysana marka that is why baynu leenahay marka waa accuracy inta badan waa ka ugu saxsan pointiga afraad waxaan leenahay the diligence waa maxay diligence waxa weeyaan waxa uu ku shaqeeyaa waa honesty computerku waa daacad oo haddii computerkaagu aanu dabku ka dhicin ama si xumaansho kale aanay ku imaanin waxa laga yaabaa in muddo badan uu ku shaqeeyo computerka muddo badan isagoo aan daalin diligence marka la leenahay computers can work for hours without any break and greater errors waxa laga yaabaa saacado badan inuu ku shaqeeyo isagoo khalad keenin adoo khaldamooyo adaa input moogta adaa information computerka wax ku qoraya marka adigoo khalad sameeyo mooyaane waxa laga yaabaa computerku inaanu khalad sameeynin it is free from tiredness sidoo kale waxa uu ka madax bannaan yahay inuu computerkii daalo oo sida bini aadamku haddii muddo badan ay shaqeeyaan waxa laga yaabaa shaqadii inay gaabiyaan ama ay daalaan that is why computers marka iyagu waa diligence haddii muddo ay shaqeeyaan isla wixii ay ku shaqeynayeen ama sidii u shaqeynayeen bay shaqadu ahaana sidoo kale markaan leenahay greeting from errors wuxuu ka madax bannaan yahay inuu khaladaad sameeyo computersku inta badan qofka inputka computerka isticmaalaya oo sameeyo mooyee haddii computerka si sax ah aad wax ugu qarto isagoo markaa khalad sameyn maayo that is why marka waxa laga yaabaa adiga oo bini aadani markaad wax isku geynayso oo tiraahdo laba u geeyo maanta oo dhan wado informationkii number of hours markaa shaqeyso muddo badan waxa laga yaabaa saacadihii inay yaraa in moogtahay marka dambe aad khaladaad sameeyso oo laba u gaalka laga rabay 4 aad tiraahdo laba u geeyo waa 5 marka number of hours badan aad shaqeyso that is why aynu leenahay marka calaamadaha computerska waxa kamid ah diligence marka waa free from tiredness pointiga shanaad ee u dambeeya characteristics of computer ama features of computer waxaan leenahay power of remembering computeradu waxay leeyihiin awood wax xasuusi waxbay xasuusan karaan say wax u xasuusan karaan waxaan leenahay marka any amount of information can be stored in the computer amount kasta ama shay kasta oo computerka xaddi kasta oo computerka qaadkiisa ku save karayso can recall dib baa uga helaysaa as long as you require it waqti muddada doontaba ha qaato computerkaagu hadaanu xumaanin waa if haddii computerkaagu uu shaqeynayo oo aanu xumaanin ama virus aanu soo gelin waxa laga yaabaa data kasto computerkaaga ay geliso iyo sideedii oo hada statement aan qornay waxa laga yaabaa 5 sano ka hor hadaynu ku save kareyno computerkeen aan 2 sano ka hor computerkeen noo shaqeynayo waxa laga yaabaa isagoo sidaas aan waxba ku biirin in moogta information kaasi aanu ka helno laakiin waxa laga yaabaa qof hadaa wuxuu sheegto dhowr sano kadib aad weydiiso waxa laga yaabaa wixii inuu dib u xasuusan waayo that's why marka waxa leenahay computersku waxay leeyihiin awood wax xasuusi any amount of information can be stored in computer and recall information kasto computerka ku save kareyso waxa laga yaabaa muddo kadib inay hesho as long as ama number of years after sanado badan kadib marka shantaasi waxaan ku soo koobanaa shanta calaamadood ee computeradu inta badan ay goonida u leeyihiin se ay uga duwan yihiin waxa la yiraahdaa dadka bini aadanka inta way ka badan yihiin shantaas aan ku soo koobanaa casharkeena qaybtiisa labaad waxa ku qornaa motherboard waxa la yiraahdaa motherboard computerka markaynu soo qaybeynay shan baynu soo qaybinay waxa la yiraahdo input device output device storage device CPU oo central processor kii la yiraahdo CPU device iyo motherboard marka motherboardku iyadoo inputna maaha outputna maaha inta badan laakiin waa maxay marka la qaybinayo computer hardware software loo kala qaybinayo casharka ku xiga waxa arki doontaa waxaynu ku darnaa kuwa la yiraahdo computer hardware marka motherboard maxay tahay waxaan leenahay it is an essential part of the computer equipment that allows different components of the computer including hard drive memory card processor to communicate with each other waxaan leenahay waa essential part of the computer waa qaybta computerka ugu muhiimsan soo kale waxaanu ku qeexi karnaa waa the heart of computer waa wadnaha computerka inaga wadnaheenu muxuu qabtaa waa bumper the blood jirka dhan buu isku xiraa dhiig uu qaybiyaa jirka waxa soo dhan marka iyadu maxay u noqotay the essential part of the computer qaybta computerka ugu muhiimsan waayo maxaa ku xiran motherboardku waa birta ugu weyn ee computer ku jirta CPU-ga ama computer case-ka inta badan ku dhex jirta marka waxa ku xiran hard drive-kii memory-gii processor-kii birtii wax processor gareysay input iyo output-ka kala maamuleysay si marka ay u wada shaqeeyaan dhammaan computer-iskii oo dhan ba waxaan leenahay motherboardku waa the essential part of the computer ama qaybta computerka ugu muhiimsan muuqaal ahaana waa tasaas meesha kaaga muuqata maxaa ku sawiran de wixii dhan baa chipskii dhan baa ku xiran marka circuitskii dhan baa ku xiran integrated circuitskii dhan memory-gii baa ku jira CPU-gii baa ku jira CMOS-kii dhagaxii battery-ga ku jira dhammaan marka waxa ku xiran computerka intuu ku shaqeynayo dhan marka birta ugu weyn ee noocaas oo calaamadeeduna inta badan cagaarka tahay way isbedeli kartaa kalarkeedu baa waxa la yiraahdaa motherboard hadii wax laga weydiiyana motherboard waxa leedahay waa the essential of computer equipment waa qaybta computerka ugu muhiimsan sababta inta badan muhiimkaas ay u noqotayna waynu soo sheegnay waxa ku xiran hard drive-kii waxa ku xiran memory card-kii waxa ku xiran processor-kii waxa ku xiran
xiran wixii kale input device iyo output device-kii meesha inta badan laga maamulayo wixii inuu shaqeeyo macnaha ama computer ka dhigaya wax shaqeynaya ba waxaan leenahay this called the motherboard marka ardayda casharkeeni halkaas uu marka inuu eegyahay qaybtiisa koowaad lesson 2 chapter 3 qaybtaasan moogta halkaas aynu ku soo joojinaa laba qaybood baan soo qaybinay calaamadaha computersku ay leeyihiin iyo waxa la yiraahdo motherboardka baynu ka soo sheekaynaa marka waxaanu qaadanaa questionska su'aalaha casharka qaybta ugu dambaysa questionka koowaad waxa ku qoran maxaa la yiraahdaa ama maxay yihiin calaamadaha computersku ay leeyihiin kuwi badnaayeen hadda soo sheegnay baa qayb kamid ah qoraysa pointiga labaad maxay yihiin farqa u dhaxeeya speed and accuracy oo soo sheegnay farq ama difference baa u sameynaysa soo kale waxaad sheegaysaa power and remembering macnaha what is mean of power of remembering define garee power of remembering muxuu yahay ama maxay tahay midda afraad waxa ay tahay define motherboard maxaa la yiraahdaa waa birtii hadda aan ka sheekeynay waa sheegaysaa markaasi questionka ugu dambeeya ashirkeena lesson 3 waxa leedahay we can say motherboard is the heart of computer waxaanu oran karnaa motherboard waa the heart of computer sida true or not adiga marka sheegay ma saxba mise maaha intaas marka waxaanu ku soo gabagabeynaa lessonkeeni saddexaad chapterkeeni labaad waxaan rajeynayaa marka inaad fahanteen waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh